dhowr maalmood ka hor ayaan halkan idinkuugu baahiyey in Shimaali Axmed Shimaali la dulmiyey uuna ilmeynayo waxay nagu ahayd xaalad murugo ah waan aragnay fariinta Shimaali in ay idin damqisay sababtoo ah waxa aad gaarsiiseen halkii aan idinka codsanay meel ka fog Shimaali hadda ma ilmeynayo balse waa uu dhoola cadeynaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا داود يالسود وهذا ومركلة إيه ولكن آذن كرامة هلك أدب عن قفير سنة سنة وبرتن يوتيوب كل آذن كرامة هدي أي تاي مركي يقول رئيسي أدنى صوب وقد تفضل سبسكرايب تينو شرف إسلام مركنا الريح كمالك عاسية يكوسو قاران دعوين كي مقالدة كلا دوين هلكن كسوقت منه هدي أدهورين ونشوكتنا عادي أدبض مع سنتها هي مقالك لايكتا فضلا لايكتا كسي قبتا أو سي باهية سي وقارب لشدة. dhowr maalmood ka hor ayaan halkan idinkuugu baahiyey in Shimaali Axmed Shimaali la dulmiyey uuna ilmeynayo waxay nagu ahayd xaalad murugo ah waan aragnay fariinta Shimaali in ay idin damqisay sababtoo ah waxa aad gaarsiiseen halkii aan idinka codsanay meel ka fog Shimaali hadda ma ilmeynayo balse waa uu dhoola cadeynaya sababtu waxa ay tahay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha degmada Xamarweyne gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa ay booqdeen goobtiisa ganacsiga ee ku taala degmada Xamarweyne Shimaali fariintiisa oo ahayd cabasho waxa ka soo jawaabay mas'uuliyiin muhiim ah Shimaali waxa qadka telefoonka kula soo xiriiray maareeyaha golaha murtida iyo madadaalada ahna tiirka abwaanada Soomaaliyeed abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure Shimaali ayaa halkan ka cadeynaya dadkii dulmiyay in uusan ka mid ahayn abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure dad raggi xumeeyay abwaan Guure kuma jiro abwaan Guure usbuuc jooga marka waxa ay xumeeyay maamulkii ka horeeyay abwaan Guure taasna abwaan Guure cilaankii aan ku saaray maantan ka tiray taas ogsoono adigana waa maadsantahay abwaan Guure waxaan joognaa dawaarka xarunta degmada Xamarweyne ee uu talo alfanaan iyo sidoo kale jilaa Soomaaliyeed oo in badan ugu soo madadaaliyay fankiisa dhawaan waxaad ku aragteen isagoo jooga stuudiyaha Hubaal TV laakiin maanta waxa alla nagu simay inaan u imaadno xaruntiisa oo ku taala degmada Xamarweyne isla markaana aan kula qaadano waqti si aan idin tusno qaybaha kala duwan ee shaqooyinka kale ee uu qabto alfanaan Shimaali Axmed Shimaali wasiirka dhalinyarada isboortiga Maxamed iyo gudoomiyaha degmada aan deganahay Xamarweyne ilaahay cizi iyo sharaf iyo karaamo labadoodaba meherdeedii ugu soo booqdeen horta ilaahay ma hadii waay abaal aan dhamaan ayaan idinku hayaa wasiir waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga maba islahaynba kelmadaadii ayaa laga soo jawaabaya ama wasiirka soo jawaabaya ama agaasime ka soo jawaabaya ilaahay ma hadii way hadii wasiirkeygii oo difoosan ii ahaan jiray yaraantiisa asoo hadda yar heesaygana dhageysan jiray hadduu ii soo jawaabay xumeenta ay waa beri xumaysay wasiir waa ka qabaa waana ka gudoomay jazaakallahu khayr marka koowaad waxaan rabaa inaan ammaan aan la koobi karin aan u jeediyo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga wasiir Maxamed Barre Maxamuud oo run ahaantii markii ay gaartay ayna dhaantii alfanaan Shimaali Axmed Shimaali si degdeg ah uga soo jawaabay arinta haddaan runta ka sheego waxa ii soo diray kilib ay qabatay Awlul Ubayd oo ay Shimaali sheeko ay la yeelanaysay ah in fanaana oo jooga Yurub oo la yiraahdo Burhaan Yuusuf Indhadeero oo kamid ahaan jiray kooxdii halgan markuu ii soo diray laba cishaan haystay saakay ayaa waxa ii suura gashay oo igu soo dhacday inaan arinta la wadaago wasiirka dhalinyarada isboortiga isla markii 10 daqiiqo ka bacdi markuu fiirsaday wasiirku waa ii soo jawaabay wuxuu igu soo jawaabay laba qodob marka koowaad laga bilaabo maanta inuu Shimaali Axmed Shimaali kamid yahay kooxda danan oo dib u dhiskeeda hadda uu gacanta ku hayo wasiirku ee wasaaradda dhalinyarada isboortiga qodobka labaadna uu booqanayo muxuu ahaa harqaanka uu leeyahay Shimaali Axmed Shimaali marka saddexaadna dhammaan kooxda danan iyo asxaabteeda oo fulinayso bandhigyo waaweyn isla maanta dhar looga tolayo muxuu ahaa sida qaas waxa uu sii maad celinaa
fariinta inaan mataqaana ka soo jawaabo waxaa ka sii weyneed horta inaan fariinta ay soo gaarto mudnaanteedna waxaa iska leh walaashay Xawluul iyo maxay toole abwaankeena labadoodu oo ahaa abwaanka oo ii soo diray saakay subaxnimadii hore markaan daawadayna xaqiiqdii meesha kaliya aan uga soo jawaabi karaa waxay ahayd abwaanka waxaan isla wadnay hool ahayd in aan dib u howlgelino kooxdii wasaaraddu ay leed barsamaadka ee danan kooxda dhalinyarada danan kooxdaas oo hadda aan insha Allah rabnay dhawaan inay soo bandhigaan bandhigyo mataqaana aad u qurux badan marka maalmahan waxaan wadnay diyaar gareynteeda iyo labisyadooda marka meesha ugu dhow anaga aan uga heeli karna waxay ahayd hadal aad ii soo jiito Shimaal oo yiri ani bacdama fankeyga lagu qiimeeyo waaye laba xirfadaan leeyahay xirfadda labaad aan leeyahay aan ku shaqeystaa marka dadka Soomaaliyeed wuxuu yiri ma tuugsanayo shaxaadna ma idin karo shaxaadkee waxay ugu bedeshiin inaad dharkayga tolataan shaqada marka annaga marka taas ka jawaabeen abwaanka waxaan ku soo celiyay markii baan iri niyahow mashruuci hadda aan haynay dharka kooxda fanaaniinta musicianka gabdhay wiilalba waxaan iri qandaraaskaas aan siino legend fanaankeena Shimaal Axmed Shimaali sidoo kalena aan oday oga dhigno oo mataqaana ku xoojino macallin iyo tababarana oga dhigno kooxda dhalinyarada maadaama aan u baahanahay dad legend ama khubaro aan u baahanahay mar walba aan soo aruurinayna ayadan waxaan ku yiri aan ku soo darno kooxda oo danan marka abwaana taasna waxa way aqbaladeeda aan ka rabnaa anaga waa soo jeedinay inaad kooxda ku soo biirto si bilaa shuruuda aad noqoto odayga kooxda aad ka odayaasha kooxda aad ka mid noqoto ayadana taas waxay intaan anaga awoodna karaankeena ta saddexaad waxa waaye dadka saaxiibada ama mas'uuliyiinta saaxiibada ee golahan iskula jirno wasiirada iyo dhamaan madaxda qaranka haday ahaan la xildhibaanada saaxiibada dhamaantood ayaguna waxaan dhihi lahaa fanaanka ama lejanka nin walba wax u tarto kaliya inaad soo booqato meeshiisa laba joog ama joog ka toloto taas wax weyn u ah in mataqaana gurmadka la siiyo marka ayaduna waxa waaye lafteeda marka taasna waxay qayb ka tahay qof walba la yimaado hal abuur hadii lagu dhiirigeliyo qof walba waa si dhiirana kuwa hal abuurada leh la gambanayo waxa ama ku socon waayeen niyada ku hayana waxay lahaanayaan ama yeelanayaan dhiirigelin iyo maxay toole inay ku dhiiradaan waxa ay bartaan ama xirfadooda fanaankaada uga mahad celina fariintiisa sida quruxda badneed noo soo gaartana annaga intaan hadda awooda ka wasiir ahaan intaas in ka badan insha Allah waxaan ku rajeynayaa inaan anigu mar walba aan codkayga meel walba wax ku gaarsiin karna ku gaarsiiyo weli nolosha nagu soo marin wasiir soo booqanayo goob shaqo waa wasiirku ugu horeeyay waxaan leenahay mahadsanid 100% absolutely ma arkin ninkan oo kale waxaan kaga mahad celinayaa wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga باقي شمالي أحمد شمالي فنان كوينا لجنك إنه كسو جوابي عبشدي سنة إيجارتي وحن قاد وفرح سنة ودلنيراهان أن كفاني كرنا إن علينا وزير دلنيرو أو مر الله لمركي لو بعضه أما باقي لو جديو سدق دقة وجوابي laakiin maanta waxay soo noqotay Soomaalinimadeedii karaamadeedii sharafteedii waxa soo dhanna waxaan ku helay waraysigaaga Ilaahay caafimaad kugu siiyo waa ku duceynaa aabaago kalan ahay Xawluul meel gooni ayaad iga taala maanta laga bilaabo maadaama codsigayga madaxaaga wasiir dhan dukaankayga yimid gudoomiyaha degmada dukaankayga yimid taliyaha degmada dukaankayga yimid waxa dhan Ilaahay ka sokow fadligaaga way miisaanka Allah kugu daro anna waxaan leeyahay Hubaal TV 9 saac habeenimo haday iriday soo garaacaan inaan la shaqeeyaan diyaar u ahay fariinta oo gaartay meel fog annaga ka sokow waxaan u mahad celinaynaa adinka oo meeshii loo waday meel ka fog gaarsiiyay badhay daawadayaal haddii aad hore inoola joogtay waad ku mahadsantahay si joogitaankaaga madaxa ayaad inoo saaran tahay muuqaalka lay ku sii qabo haddii aad inagu cusub tahayna fadlan subscribe inoo saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada iyo dhacdooyinka xiisaha leh halka ku soo gudbino tan iyo muuqaalka mid lamid ah oo walaalkeenada karaamada kaga tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Nabadino.